hay-adda dhowrista tayada Somaliland ayaa gubtay daawooyin kansarka ah oo dhacay iyo 1,100 kiish oo daqiiq dhacday. Gubitaanka daawooyinka iyo daqiiqdan dhacay oo lagu gubay duleedka magaalada Hargeysa ayaa goobjoog waxa ka ahaa gudoomiyaha hay-adda dhowrista tayada Muuse Xasan Xaaji Yuusuf, mas'uuliyiin ka tirsan hay-adda dhowrista, mas'uuliyiinta wasaaradda deegaanka iyo dawladda hoose ee magaalada Hargeysa. Ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay isla markaana faahfaahin ka bixiyay habkii loo gubay daawooyinka iyo daqiiqdan dhacay gudoomiyaha hay-adda dhowrista tayada Somaliland Muuse Xasan Xaaji Yuusuf waxaana uu yiri halkan waxaanu ku haynaa laba shay oo labadaba aanu ay nagala shaqeeyeen dhammaan laamihii ku hawlanaa sidii dalka looga ilaalin lahaa wixii wax yeelayay. waxaanu mahadnaqaynaa marka ugu horeysa oo dawadan lagu qabtay madaarka. dawadani waa dawada kiimoga loo isticmaalo ama chemotherapy-ga oo kansarta daweysa. dawadan iyadoo dhacsan bay dalka soo gashay 18 kartoon bay ahayd. dawadan waa dawo aad iyo aad qaali ah, waana dawo khatar ah oo waxay bixinaysaa radiation. dawadan sida u shaqeeysan waynu ogsoonahay oo jirka waxay ka dishaa cellska ama growth hormoneski ama in cancerta ay ku fido jirka. marka dawadan sababta awgeed baanu dawadan aanu maanta isugu nimid inaanu hubino annaga oo raacayna guidance-kii ama shuruudihii WHO World Health Organization oo uu nagala shaqeeyay wasiirka horumarinta caafimaadku, annagoo raacayna cabirka ama wada shaqeynta deegaanku inaana wax yeelin dawadan oo ay wasaaradda horumarinta deegaanku ay nagala shaqeeyeen agaasimahoodii guudna uu halkan joogo, annagoo kaashanayna dawladda hoose oo iyaguna nagala shaqeeyay oo maanta halkan maayar ku-xigeenkii iyo xogayihii iyo agaasimihii waaxda fayadhowrkuba ay taagan yihiin. waxaanu doonaynaa dawadan inaanu sida waafaqsan sharciga aanu halkan uga saarno oo aanu gubno insha Allah. waxaan u mahad celinayaa kastamka madaarka, maamulaha iyo maamulka ku-xigeenka. waxaan u mahad celinayaa tubataariyada madaarka. dawadan iyo macluumaadkeedu waa sidaas. waxa kale oo iyaguna halkan aanu ku haynaa daqiiq markii hore dalka gudihiisa lagu package gareeyay ama lagu mool gareeyay, dabadeedna dalka dibadiisa laga dhoofiyay oo 1,000 kiish ahaa. 500 kiish baa dib loo soo celiyay. markii dib loo soo celiyay ayaa waxa qabtay kastamka dhexe, khaasatan tubataariyada oo aanu taliyahoodii iyo taliye ku-xigeenkooda oo halkan taliye ku-xigeenkiina nala jooga aanu mahad celinayno wada shaqeynta. daqiiqdaas shirkaddii keentay iyo ciddii ka ganacsanaysayba waanu marinay xeerka iyaga iyo waajibaadka. digniina waanu siinay dhammaan bakhaaradii iyo goobihii ay ku lahaayeen dalka, hadday Hargeysa tahay iyo hadday Berbere tahayba waanu baadhnay. 600 kiish oo Berbere yaalan waanu ugu tagnay, iyagana haddii la ka dhigo waanu gubaynaa sidaanu tanba u gubnay. waxaanu faraynaa ganacsatada way arkaan waxa khasaare iyo dib ay keentay alaabta tayadoodu ay xun tahay dalka la keenay. waxaanu uga digaynaa ganacsatada inaanay taas oo kale samaynin. khaasatan waxaanu uga digaynaa dadka ka ganacsanaya dawooyinka noocana inay marka hore sharciga iyo nidaamka wasaaradda horumarinta caafimaadka ay u soo maraan oo ay liisankii ka haystaan. dawadani waa control drugs wax la yiraahdo. caalamka dawo si fudud u kala socota maaha, innagana iyadoo si fudud ayay inoogu soo gashay. waxyeeladeedu aad iyo aad bay u badan yihiin oo dadka kansarta qaba markay isticmaalaan waad garan kartaan. dhakhtar oncology-ga soo bartay oo kansarta ku takhasusay unbaa dawadan qori kara. marka dawadan hadday suuqa soo geli lahayd dadka waxyeelo badan bay yeeli lahayd. marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin wada shaqeynta fiican ee laamaha dawladda hoose Hargeysa iyo dawladda dhexe iyo ciidanka tubataariyada. agaasimihii hore ee wasaaradda deegaanka imikana ah agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Dr. Cabdirasaaq Jaamac Naakhudiye iyo maayar ku-xigeenka caasimadda Cabdicasiis Maxamuud Xaashi Cagaweyn oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in tallaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadi doonaan cid kasta oo isku dayda inay dalka soo geliso waxyaabo dhacay. maanta waxa la yiraahdaa dawo bukooto maxaa lagu dabiibaa? dawadii oo arkaysaanba ayaa dadkii waxa laga iibinayaa dawadii oo dhacday. dhibta ay leedahayna waa ka Dr. Muuse inoo sheegay. waxaanu ka xishoonay inaanu halkan ka sheegno shirkadihii keenay dawooyinka dhacay, waayo tii aan dhicinay hayeen in laga iibso waayaanu ka xishoonay.
laakiin maanta waa u digniino raashinkaa dhacay ee intay xuduudda ka tallaabeen inta Hargeysa raashinku ku dhacay la baakeej gareeyay xuduudda ka tallaabay haddana dib dalka loogu soo celiyay waa wax aad iyo aad u foolxun aad iyo aad u foolxun weeye ciidanka laakiin waxa mahadle ilaahay kasoo waxa mahadle ciidanka heeganka ku jira qoom dhan baa lagu rogay miisaanay kala horeysiyeen waanu garanaynaa shirkadii magaceeda iyo ciday tahayba waxaanu ka xishoonnay inaanu shirkaddaa sheegno waayo dad badan oo shaqaale ah oo reer Somaliland baa ku nool waxaa leeyahay ganacsade caawa TV-gana waa daawanaysaa waana inuu sugni waxaa leeyahay kawaanto baa leeyahay hadday kuwa dawooyinka iyo hadday yihiin kuwa raashinkaba ballan halkan waxaanu ka qaadaynaa cad laga bilaabo maanta 2020 baa la galay in aanu sheegi doono ciddii dambe ee dawo dhacday iyo raashin dhacday aanu ka soo helno waxaan idiga codsanayaa markay wax kugu dhacaan ama markay soo dhow yihiin muwaadin ganacsada muwaadinka baa la hadlayaa keen oo dawladda hoose iyo hay'adda soo wargeli waliba waa kugu mahadnaqaynaa oo qof dalka iyo dadkaba ka naxay baad noqonaysaa ilaahayna aakhiro wuxuu sii dhigtay annagaa gubayna annagaa ka qaadayna annagaa geynayna halka loogu tala galay